Fideogii hore waxaynu kaga soo hadalnay cloud code iyo qaabkii aa u isticmaali lahayd iyo cloud code inoo soo furay Soomaaliya. Fideogan waxaan ka hadlaynaa qaabka ugu xiri lahayd applicationo muhiim ah sida Gmail, Notion iyo Blender. Si aan ugu xirno waxaa imaanaynaa qaybta connectorska. Hadda waxaa noogu xiran Blender, browse connectors dheh. Meeshaan waxay ka raadisaa Gmail. Gmail waa kaasa. Gmail waa kana. Gmail marka ku dhufatid wuxuu nageynaa cloud code website-kooda. Gmailadaada mid ka mid ah dooro midka rabtid inaad ku xirtid. Continue dheh. Wuxuu noo ogolaanaa inuu yani isku xiro cloudka iyo maxaa la yidhaha Gmail-keena. Hadda Gmail-keena iyo cloudka waa isku xiran yihiin. Si aan u verify gareyno waxaan weydiin doonaa su'aal ayaan weydiin doonaa. Waxaanu kuu soo saari doonaa open desktop marka uu verify gareeyo. Hadda verification-ka qaybtooda waa naga qarsan tahay. Marka waxaa leenahay connectors meeshas waxaa noo soo galay Gmail. Waxaan weydiinaynaa su'aal taasoo ah inuu noo soo akhriyo Gmail-keena Gmail-adii ugu dambeeyay naloo soo diray latest emails-ka noo soo diray oo yani Gmail-keena. Marka hadda wuu soo fetch gareynaa Gmail-ka ayuu tagaa. Wuxuu tagaa latest messages ama latest Gmail mailska. Hadda waa kuwana intaan 10 xabo ay soo qabtay. Hadaan fiirino waqtiga midkan waa hadda 12kii 11kii si isku xigaan waana emails aan la furin micnaha unread waa. Mid kale oo ku xiri karna waxaa loo yaqaan application-ka loo yaqaano Notion. Application-kan oo loo isticmaalo inuu yani task tracking loogu talagalay. haddii uu kugu jiro application-kan waa ku xiri kartaa. haddii is kugu jirin la soo deg as application ahaan ama web app ahaan la soo deg. Inkastoo uu leeyahay asaga AI oo gooni ah. Hadda marka ay imaatid cloud-ka waxaad tagtaa qaybtii connectorska browse connectors dheh. waxaa ka meeshan ka raadisaa application-ka Notion. Notion dheh. Notion waa kaasa plusta ku dhufo. Marka ku dhufatid wuxuu ku geyn doonaa browserka halkaasoo kasoo login gareynaysid Notion-ka. haddana login ayuu yahay. Wuxuu leeyahay connect Notion with MCP with cloud code. Connect dheh ciwaanka uu kugu samaysan yahay Notion. hadda wuxuu ku leeyahay fur cloudkaada fur. marka waxaan verify gareynaynaa hadda isku xiran yihiin cloud iyo Notion-ka isku xiran yihiin. waxaan verify gareynaynaa kasoo bax. hadda waa ujeedaa customization kasoo bax. waxaan verify gareynaynaa inuu Notion-keena uu yani si toos ugu xiran yahay cloudka. waxaan leenahay Notion now Notion is connected to the cloud. Could you create a test task? ma noo samayn kartaa waxaa raanay task yani shaqo oo tijaabo ah ma noo samayn kartaa. haddii aran gareyno wuxuu tagi doonaa application-keena Notion wuxuuna generate gareynaa allowde meeshaas mar walba application aad ku xirto wuxuu ku weydiin doonaa permission. allowde Notion-keena ayuu tagi doonaa wuxuuna noo samayn doonaa taski oo tijaabo ah. test taski noo samayn doonaa. iska xir waxaan. Notion tag meeshaas waxaa noogu soo darsoomay test workpage oo halkaan ka arki karta Notion MCP connection inuu yahay. waxaa create gareeyay cloud create gareeyay taskiskan ama Notion taskiskan. marka qaabkaas ugu xiri kartaa. application-ka saddexaad oo muhiimka ah waa Blender. application-kan wuxuu kaa saacidayaa haddii aad ku xirto cloud wuxuu kaa saacidayaa inuu shaqooyinkii 3D-ga ahaa cloud aad yani si prompt ugu dhiibtid uu asaga uu generate gareeyo. hadda marka wuxuu u baahan yahay MCP serverkan u baahan yahay. waxaa sameysaa drag and drop waa kusoo siinay application-ka Blender. marka wuu kusoo dejinayaa. haddana uu ii degsan yahay permission waxyaaba ku weydiin doonaa adii install adhigi doontaa. waa extension MCP extension. waxaa ku ogaan kartaa waxaad tagtaa qaybta edit tag
preference tag waa kana mcp inuu kusoo degay meeshaan ka ogaan doontaa. waxaa kale oo jiro meel kale oo muhiim ah markaad tagta systemka meeshaan allowda tag saar, haddii kale ma kuusoo degaa mcp internet accesska permissionkas u ogolow. hadda cloud codeka wuxuuna leeyahay get more, waxay u badan tahay inuu naga soo xirmay. hadda blender waa noogu xiran yahay. okay simple taskaadna u dirnay wuxuuna leeyahay wuu naga diiday. يعني waqtigii ay haysan wuu naga dhacay micnaha berri soo laabo. haddii aan waqti haysan lahayn waxaa yacni generate garanaysaan oo kale waxaa dhihi lahayn defaultiga cubeka meesha yaalla delete, cloud waa uu delete lahaa. so muuqaalka kan maahane midka kale ayaan ka generate garaynaynaa insha allah, inkastoo aan haysano limit time oo cloudka oo mar walba wax weydiisato uu kaa xirmaayo. marka muuqaalkan kan ku xiga aan ku sharxi doonaa insha allah. muuqaalkeen intaas ku egyaha ku mahadsantahay daawashada.